arrintii baa la rogrogay waxa cajiib ahayd maanta waxa ogtihiin waxa la isku hayaa mucaaradka oo leh doorashada madaxweynaha la qabto iyo xukuumadda oo leh waxa ka soo horeynaysa tii ururada laakiin maalintaa waxa la isku hayay aad bay u qosol leedahay marka maanta loo eego maalintaa Muuse Biixi oo ahaa gudoomiyaha kulmiye iyo musharaxa kulmiye wuxuu taagnaa xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ma ogola in doorashada maalin lagu daro Cabdiraxmaan Ciro oo wadani oo musharax iyo gudoomiyeba ahaana wuxuu taagnaa doorasho suuragal maaha muddo kordhin la sameeyo waayo abaar kulul oo baahsan baa jirtay runtiina way ahay arrintii baanu rogrognay waxaanu go'aaminay kow in saxaafadda hadalka la isu marinayo la joojiyo laba in doorashooyinka loo riixo hay'adaha ku shaqada leh siiba komishanka iyo guurtida annaguna aanu ka howlgalno waan xasuustaayo arrintii waa la isla qaatay komishanka iyo guurtida baan u tagnay waxaanu ku nidhi arrintaa aanu xisbiyadii ka soo dhammaynay idinkuna xilli farsamo kordhiya oo aan ahayn muddo dheer waxaan filayaa 10 bilood in la kordhiyey waayo xilligaa aanu shiraynay waxay ahayd bishii koobaad 15keedii 2017 doorashadana waxay dhacday November isla 17 taas waxaan u soo qaadanayaa ismaqalka iyo tanaasulku faa'iido mooye inaanu khasaare lahayn xaaladda maanta taagan madaxweynaha eray baan odhanaya mucaaradkana mid baan odhanaya shacabkana mid baan odhanaya madaxweynaha waxaan leeyahay xilligii musharaxnimada kulmiye isku qabateen madaxweynihii ka horeeyay Axmed Silaanyo xataa ay gaadhay sawirkaagu inuu dambi noqdo gaariga lagu dhajiyo ayaan maqaal qoray jaraa'idkii xilligaa soo bixi jiray baan ku qoray waxaan ciwaan uga dhigay madaxweyne waa yeelmo eed beelo anigoo la hadlaya Axmed Silaanyo waxaan uga jeeday xaalad kasta oo timaada eedu waxay ku soo horeysaa ninka markaa meesha odayga ka ay eedu ku soo horeysaa maanta halkii waxa taagan oo madaxweynaha Muuse Biixi madaxweynaha waxaan leeyahay ummaddu waxay ku siisay shaygii waxay hayso ugu mudnaa waxay ka dhigtay madaxweyne waliba si kalgacal bay ku dooratay ummadda ku dooratay ee taladeedii ku dhiibtay duruufaha maanta haysta waad ogtahay abaar baa jirta maciishadii oo kacday baa jirta suuqii dhaqaalaha oo gubtay baa jira shaqo la'aan baa jirta baahsan ummadda duruufahaasi haystaan ma mudna mana gayaan in buuq siyaasadeed loogu daro niman mucaarada oo faramaran oo aanan waxba u dhiiban eedda kula qaybin mayno eedda koobaad madaxweyne adigaa leh haddaad qalalaasaha iyo siyaasadda soo afjartana ammaanta koobaad adigaa leh dalkan dee xogagaal baad u tahay waxa lagu soo waday sharciga waxa lagu soo waday in tanaasula waxa lagu soo waday in xeer jajaba waxa lagu soo waday in turaala waxa lagu soo waday in ismaqala intaas oo dhan xogagaal baad u tahayo dee nin meel jiray maadahay waa ayaan daro maanta inaad ummadda waxgaradkeedii culimadeedii salaadiinteedii iyo aqoon-yahankeedii ka gacan taagato hadhowna marka midowga Yurub iyo Mareykan iyo ay yimaadaan aad maqasho waxay nagu tahay ayaan daro waxaan oran lahaa yaan cid isugu keeni manin inagu gudaheena wixii khilaafaadaan ka dhamaysan madaxweyne waxaan kuu soo jeedinayaa maanta garnaqsi kaagama fadhino waa la iga khaldan yahay kaagama fadhino maanta waxaanu kaaga fadhinaa xal inaad keento waxaanu kaaga fadhinaa inaad tanaasusho waxaanu kaaga fadhinaa hogaamin turaale leh inaad la timaado waxaanu kaaga fadhinaa madaxdii kaa horeysay sida yeeli jireen inaad yeesho waxaanu kaaga fadhinaa asxaabta
golayaasha waxgaradka intaba inaad isugu yeedho oo aad miiska soo saarto sharciga dalka duruufaha jirana tidhaahda eega iswaafajiya anna oday baan idinku noqonaya halkaa xalku ka soo baxo taasaanu maanta kaaga fadhinaa gaariye ilaahay u naxariistay maansadiisa waxaa ku jirtay nimaanu uliya diirnahay oo dareenna kala galay ama daadna kala xidhay u dabaalo mooye ma dariiq kala furan dabaalashadaa uu sheegaya waa tanaasul iyo dabac iyo maqaale iyo odaytinimo taasaanu madaxweyne kaaga fadhinaa madaxweynaha horta isaga midhkaasaan odhanaya mucaaradka midh baan leeyahay waxaa ku baaqdeen mudaharaad nabadeed laakiin kii maydaan dhigin anigu waxaan u arkaa inaad dagaal rideen 7 qof baa dhintay 100 iyo jarjar baa dhaawaca intaasoo hantiyaa burburtay dagaalada qaar baanay khasaaraha intaa leegi dhicin iyadoo intaasina gaadhay shacab ahaan ayaa noomaydaan garaabina haddana waxaad tidhaahdeen waa sii wadaynaa